السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوى ضوضي الملك سيد كسبنتين. كقداش هذا واحد كم موضة وشانل يوتيوب واحد كقرن حنان شانل أم حنان شانل. كبر سوماليات ورنتي وحبرتي واحد بقى شا تاريخ ده أما أثارتي هوري تاريخ دي هوري. وضدك أو صوب بندقة. أفعال بيجو في عنتي هوري أفعال بيجو هذا شيء مركان شانل فيها ده جاي. و taariikhdii hore ee Soomaalida wixii hore laga yiri wixii la baaray DNA-dii taariikhda waxay la gashay Yamanta marka gabadha waxa weerar ku qaaday oo dabcan halkaan waxa ku qoran account warning in loo digay akoonka oo waliba akoonkeedii in lagu eedeeyay inuu xadgudub sameeyay xadgudub ma hadad baa dacweeyay waxaana ku haystaan waa waxyaabo ay soo bandhigayso doodda way siga celin waayeen waxay isku dayayaan inay u awood sheegtaan marka waxaan doonayaa muuqaal yar ay duubtay oo ay xaaladda ku sharxayso inaad ila daawataan kadibna ay isku soo noqono gabadhan waa gabadh hiil u baahan Soomaalidu inta isku mashquulshay ayaa laga faa'iideystay marka midmidda danteeda iyo taariikhdeeda iyo xadaaradda ka sheekayna meelahaas lagu oodanaya marka waxa weyn nimankaasi dee aqoon baan inoo lahayn inaan Soomaali xasarad inaan Soomaali la isku doonto marka xasarada noqoto marka barota ay muuqaalkeeda ila bogta xanaan ka bacdina isku soo noqonayna maanta waxa dhacay wiilka walaalkeena baa wuxuu soo furay live markuu ii soo diray waa ka qayb galnay in iraahno wardadkiina qabsada especially qoladan bodyguard adan alxasal sheekada si u wadeen waxay galeen taariikh ayuu marka hadalla beenay sheegeen waa ka marka mushkiladan waxay jirtaa haddii la doodo xog leeyihiin adoo Soomaaliya si u hadashaa Soomaalidu weligeedna qabsaday ma jirto kasi waxay aaminsan yihiin Soomaalidu khalaas ashan Carabi ma taqaanid fayga mar walba waxay iska dhigayaan wakiil inay Carabta nooga yihiin ma fahamti maanta waxaan ku leeyahay wakiil anaka Carabta nooga noqonay marka ururka Carabta waa ku jirnaa inay ka horeeyeen taariikhda Soomaalidana ka horeysa taariikhda Carabta arrimo marka waxay jirtay sheekadii taariikhda isku bedeshay su'aalo ay weydiiyeen waxay hadda ka hor waxa tiri Zaylaci waa kura Soomaali ansaabi wax weydiin wax kuraano ansaabta Carabta kuma intiraafo oo ayaga all the respect ayaga u taala laakiin marka laga hadlayo DNA iyo xadaaradii waxa ansaabta oo wax la qoray wax ka jira male so ana wax ka hadlaynaa taariikh okay ansaabta idinka inay taala okay arrimihii aad soo socotay kuwa marka soo galay waxyaalaha waxa hadda maanta ogaanay hadduu qof live soo galo iska aamuso qofkaas marka soo galo meeshii gastiga uu ballaqi karaa dadka hoos kaliya ma aha soo hadduu ku ballaqo degdeg baa marka hawada uga baxay marka aniga hawada la saaray ilaa 10 bari ma gelaysaa leeyahay arintaas kaliya ma aha message xataa noo soo diray ilaahay waa ku station group marka sameeyay bodyguard dadkan marka qof caayay maday qof wax ku sameeyay maday all the respect baa lahaa حتى تاريخين اللي دودين بقى واحد ويديني معلومة كهر بيوحي كده بلدقين I think شالي مع الدراد مع أنت قاعتين حرية تسع كل سنة كيوي ويجرون وين مركو حوجاني دد قاد قولي إن إنك نلد دودين حق علمي ده لما كان مركو جروبي سمسين كله ويلل وعلى ما ورتنا برون وحلا يلد قال يعني علشان قبر أمنا قام الدمر بعتلي كسي كنت طبله هذا ما حطلان ثاني شيء علشان قف وحبرتي waxa ku muhiim waxa weeye Arab badan baan daawanayso live-kii marmar yani ka batay 200 soo waxyaalo ay ka naxeen baa jira oo annaga haddaan taariikhdeena soo dhigno haddaan Soomaalina iga bala taariikh bay noqonayaan qolada Yamanta ah so that's why waxay yiraahdeen ayadoo dhan hawada laga saaro wiilashii live-ka haystay anigana ilaa hatta safxadayda balaaq baa ku socda ayb inoo soo qorayaan ay waxbana naga ma tarta dabcan anagu waxaan ahay dad royal family ah akhlaaqdeena si kasta noo raacayo we don't care waxay ku leeyihiin Soomaalidu waxa lagu gataa milix isaas arag Soomaali milix oo gadisha doobay loo yihiin wax sunta waa been hadda hada shid wuxuu ku leeyahay fitna rabtaa qof baa ku yani ku taageeraya kus barnaamijka joogta طبعا waa xujada daciifa qaar xataa waxay jirtaa noo soo koroo la yiri aduma gabar Yemeniya ku dishay wax ku ma aan wariga qofna ma dilin qofna ma dilin ma wiil Yemeniya yani dad daray ka wadaan okay dad waxay jirtaa aad xaq dhinaca waxaas marka laga hadlayo details kaas qolalka hurdada iyo waxaas wax weyn la ah soo kulana ku taariikh baan ka hadlaynaa culture baa kama hadlaynaa ee qof baa qof yani xumeeyay ama waxaas soo wixii oo dhan xujad daciif ah noqotay waxaan soo ogaanay dadkan inay powerful ka qaateen Soomaalida inay wakiil ka yihiin Carabta marka loo garo Soomaaligu ma hadlo
hadallada marka ay qosol jabka waxa weeye kulay Soomaalidu ma dad ku iman kulay waa dad fiican xaafid quraan way wax kulay ku xaafid quraan ah baan dadka madilna yani Soomaalidu waa dad adig marka waxay karaan ku masaajeeyaan hadalka carabtu wad garanaysan okay طبعا waxyaalo badan baa dhacay after that saasi noqotay waxa sameynayna waa wax nin isku sheegaya so that's why anigu video soo dhigay iyagoo sameeyay video xataa sawirkii iyadoo waxay sheegayeen inay channelka ku socdaan haddana channelkayga warning baa la saaray marka Soomaaliyeey I love you all insha Allah taala channelkaaga lama xirayo dad baad leedahay dhiig leh oo hiil leh oo dhinacooda aan lagaaga soo dhacay waxa weeyaan wadada aan xasarada loo siraadin aan xasarada loo bilaabin laakiin haddii loo bilaabo xasaradu ma dinto marka insha Allah taala lama xirayo hiil bad helaysaa haddaad khalad ku socotayna waa khalad haddaad sax ku socotayna insha Allah taala saxaad uu guuleysanaya waxa weeyaan qofku marka uu taariikh ka hadlayo taariikhdu oo waxyaabo la isku dilo propaganda badan iyo beena badan oo waxa jira dadka Soomaalida loo sameeyay oo meel walba galay oo la rumaystay hase yeeshee dadka wax bartay markay baaraan sida ay xanaa sheegayso waxa ka muuqata waa qof wax baratay aad wuxuu baadhay taariikhda ay akhriday dabagal badan samaysay ka bacdina ay u soo baxday wax badan oo la qalday marka magaca Soomaal badu hiilinaysa dadka Soomaal meel kasta ay joogaan waxay mudan yihiin inay ku hiiliyaan qof sharaf laba tahay insha Allah taala dadkii dhiig lahaana waad ka dhalatay bal waxaan jecelahay xanaan inaan idinku yar celiyo nimanka weerarka ku haya akoonadooda si loola socdo horta xariifiyaasha kadooyinka xira waa kuwan kana ugu horeeya kana waxa waa mid hadda noo soo yimid oo tayib iska dhigay maskiina algaxtaani waa ugu mid kala labaadna waa kana mid saddexaadna waa kana saddexdaas horta way intaan hadda hayno okay accountooyinkooda qaxtaaniga marka waa munaafiq weyn hadda koor life ku noogu yimid Soomaalidu waa dad fiican Soomaalidu nimankooda tujaarta qadiimka ah waxay gursan jireen naaga hindida qorxoon information khaldan buu noo yimid wuxuu ka xishoodayaa inuu yiraahdo naagihii mana la gursan jiray fresh marka arab badan baa nagu jirtay sameesha live kana daawareysay dad boqolaala marka intii buu ka diidayaa yani in la Soomaalidu waa xaafid quraan Soomaalidu waa hari kan marka mujrimka wuxuu sameeyaa dadkan wacyiga qolada Sacuudiga aad waxay isku haystaan muddadan oo dhan min sanadii ka hor laakiin hadda aad u soo badatay kelmadan waxa la isku haystaa asl arabiya asl araba xanaan warkeeda laga gayoon maayo waxa weeye waa gabadha ka dagaalamay furunta culus carabta xagga taariikhda Soomaalidu intay isku maqan yihiin qoraalan ku qoray maalin Facebook abo wuxuu ahaa dad isku maqan oo iyagana lagu maqan yahay يعني قف وتاوح كسي دارن قف Soomaali marka qoraalka waxa sii raacay qof Soomaali inta ay ka dhacsan tahay Soomaali kale ayaa cadowgaaga ah wuxuu fakaak siinaya wuxuu meesha u banaynaya kii cadowga runta u ahaa inuu meesha soo galo waxa kale oo fursad siinaya waxa kale oo u ogolaanaya in cid kale wadanka dhulkiisa ay ka taliso ama saameyn ku yeelato marka Soomaalidu inta ay isku maqan yihiin waa lagu maqan yahay taa waxa ka sidana waa taariikhdaada marka la bedelo been laga sheego adigoo qof xadaarad lahaa xadaarad leh taariikh leh af leh intiiba marka uu doonayo inuu ka masaxo mid intaaba lid ku ah oo ama adiga ku ah laakiin se la soo program gareeyay waxa weeyaan maadhoodna waa ka hadlay arinta afka Soomaaliga isaguna dagaal culus ku socdo marka xanaan war ku garab taaganahay ilaahay idinkii haloo hiidiyo hal iskarab taago hal lagu biiro ilaahay idinkii insha Allah taala waxa ka doontaa in hiil leedahay nimanka ay soo dhigtay iyagana akoonadii TikTok-na qoliyaha xariifinta ku ah dabagalka iyagana waa inay meel saaraan insha Allah taala way qofku markuu dulmi wado in la qabto weey وعبد الشكور محمد موسى idin leh waqtigu heer sare idin haado assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh